daawadayaal wacan oo wanaagsan meel kastoo aad dunida ka joogtaan waa mar kale saxafi films oo uga barateen barnaamijyada aynu kaga hadalno aktarada ka howlgala shirkadaha kala duwan ee dalkaasi India, Bollywood, Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali, Bhojpuri iyo Gujarati. daawadayaal barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa Tollywood Film Industries oo xaruntooda ay tahay magaalada Hyderabad ee dalkaasi India. haddaba booliska magaalada Hyderabad ee dalkaasi India ayaa waxay xabsiga dhigeen aktarada caanka ah ee reer Telugu ee Madhavi Latha. ujeedka loo xirayna waxa ay sheegeen inay mudaharaad iyo banaanbax ku horsameysay xarunta Telugu Film Chamber of Commerce oo ah xarunta filimada Teluguga ay kasoo baxaan. waxay sheegeen iyada iyo 5 qofood oo ay wadatay inay mudaharaad iyo qeyle iyo dhagxun isugu dareen. afhayeenka booliska magaaladaasi Hyderabad Bharat Bhushan ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen Latha iyo 5 qofood ee la socday. waxa uu sheegay in 4 saac iyo bar subaxnimo ay qabteen ilaa 1 duurnimo ay hayeen. waxa uu yiri horay ayaa waxa ay mudaharaadyo badan ugu sameeyeen dad shacab iyo kacdoon ka dhana Telugu Film Chamber of Commerce waxaana ka dambeysay wiil arintan aktarada lagu magacaabo Sara Reddy oo mudaharaadkan soo abaabusha. Sara Reddy ayaa horaantii sanadkan waxa ay wacd ku martay inay joojin doonaan mudaharaadka ay kaga soo horjeedo kooxda casting group oo ay sheegtay in atirishooyin badan farxumayeen oo ay gabdhaha ku sameeyaan beetir waxyaabo dhaqan xumo ah iyaga oo markii hore weydiistay inay jirkeeda u bandhigto kadibna ay ka dhigi doonaan atirishooyin filimada caanka ah. waxay sheegtay Sara Reddy waliba dadka ugu xunxun inay ahaayeen oo aflagaadada u geysatay aktarka caanka ee sumcadda weyn ku leh shirkadda filimada sameysa ee Telugu Film Industries ee Pawan Kalyan. laftiisu waxay tiri waa saqajaan aan xurmeynin gabdhaha ku cusufanka iyo jillinka ee Telugu Film Industries. waxa uu jecel yahay inuu ka faa'iideysto fursadda koowaad ee gabadhan ay ku noqon lahayd beetri atirisho. waxay tiri mudaharaadkan waa wadi doonaa waa Sara Reddy ilaa cadaaladda laga horkeeno dhammaanba casting groupka farxumeynta u geysta atirishooyinka ka howlgala. Sara Reddy waxaa lagu tilmaamaa inay tahay Kangana Ranada Telugu Film Industries oo ah gabar aanan hadalka la gabanin. haddaba murankan ayaa waxa uu soo jiitamayay teeri horaantii sanadkan iyada oo ay Sara Reddy wacd ku martay inay dad badan sharafta ka qaadi doonto inkastoo atirishooyin badan oo ka howlgala shirkadda Telugu Film Industries ay ku inkireen. waxay sheegeen inaan wax xumaata haba yaraatee loo geysanin oo arintan Sara Reddy meesha ay ka keentay aan la garanaynin. iyada ayaa waxay ballan qaaday inay marqaatiyaal badan soo hortaagi doonto maxkamadda inkastoo Telugu Film Chamber of Commerce ay iyada ka saareen in film baan loo dhiibi karin cidda film la dhigtana la ganaaxi doono oo lacag laga qaadi doono amaba aysan dib dambe film uga sameyn karin Telugu Film Industries. daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay aktarada caanka ee Madhavi Latha oo xabsiga la dhigay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. halkaad barnaamijka daawanaysaana waa Saxafi Films. waxaa barnaamijka idin daadiinaya anigoo Caaqil Cabdi Faarax. haddaba haddii aadan ka mid ahayn baada ku xiran Saxafi Films ugu horreynba barnaamijkan like saar kadibna subscribe ku qof Saxafi Films ugu dambeynna gambalka taabo si barnaamijka markuu wada soo galabo si toos ah kugu soo dhaco fikirkaaga waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta commentiska ee Saxafi Films inagoo isku duuban oo baada saxafina dhamaanteen waxaan idinkaga tageynaa sida ay nabadgelyo.